maantayto waxa aan shaki ku jirnin cidina aysan isdhahaynin sidaas ma noqonayso waxa weeye qofka ama ha lahaado hanti dhammaystiran ama yuusan lahaanin in la siman yahay guusha haddii maantayto dhegaysatid waxa wax ugu qaalisan dhiirigelin ugu qaalisan oo dhammaystiran haddaad dhegaysatid xaaraam calig ayay ka tahay in adigu aad ishagtid oo dhaqaaqtid ma ahane in aadan dhaqaaqaynin sababtu waxay tahay qofkani wuxuu ku yidhi sidaaniba baa lagaa rabaa kuma dhihinin hadda samee waajibkaaga ma dhiginin kuma baalkeenin isaga ku ciqaabi maayo adiga ayaa lagaa rabaa in aad ku dhaqaaqdid ood samaysid sida qofkan balo-aadanka ah uu u fakeray uu wakhti kuu geliyey juhdi kuu geliyey uu kuugu soo bandhigo kugu yidhi sidani waa sida kaa hoggaamin kadha ama kaa garab siin kadha in aad horumar gaadid sidaas si la mid ah u fakar wallaahi alcadiim baan ku dhaartay maantay haddii aan soo kacoon ku imaado midka dad igu xigaan u imaado kadibna aan isku dayo in aan hoggaamiyo kadibna aan isku dayo in uu waxa aan ka rabo inuu sameeyo asaga isku dayin inuu sameeyo marka aan dhaqaaqo ayuu seexanaya sidaas oo kale haddii aadan maanta dhan dhiirigelin af soomaaliga la yidhaahdo aad dhegaysanaysid kadibna aadan ku dhaqaaqaynin waxba kuma tarayso horumarku sidiisaba waa wax qof kasta oo dunidaa saaran u siman tahay kuma xirna maanta inuu qof hanti yaraan haysto sheeko kuma jiro maanta dadka hantida yar ama qofka baahida ay hayso uu maantay uu ka isku day badan yahay qofka hantida leh qofka maantay hantida haysta ka u fakari maayo maantay berberka telefoonkiisa ta internetkiisa magaalo joogiisa iyo dhaqaalaha ku baxaya laakiin qofkan kale wuxuu ka fakarayaa waxaas wuxuu ka fakarayaa beri maxaa kugu soo hayo saatan maxaa ku qaban karaa maxaa sugaysaa maxaa ku sugaya maxaa ku soo haya waxa maanta aad istaagi la beri ka dhaqaaqi ay waa maxay sida horumarka aad u gaadhid ama aad iskugu taxallujisid waxaan in aad adiga ka dhabaysid si la mid ah ay uu qofkan uu kugu soo gudbiyey sida uu qofkan kugu soo gudbiyey in uu waxaan ku tuso si la mid ah ilaa aad baahidaadu ay ku qabato oo marka aad qofka dhegaysanaysa rajacatu aad dhahdid uga waxba kuma suurtagelayaan qofkani wuxuu ku yidhi ilaah baa wuxuu ku yidhi waan garab istaagaynaa cid kasta oo isku day samaysa cid kasta oo horumar u hawoota cid kasta oo ficil habboon oo qurux badan samaysa haddaba haddii aan dhaho maantayto waan dhegaysanayaa oo qofkan dhiirigelintiis ayaan dhegaysanayaa waan ku taxalluqayaa mar kastana waan dhegaysanayaa haddana marka aan dhegaysto dhiirigelinteedii aan ka dhaqaaqo ee waxani maskaxdaydii waa galeen eg wixiina kuma dhaqaaqin ee waa waxba kuma suurtagalayaana wakhtigaas kulmin walaalin sida aad horumarkaaga aad nafsadaada uga dhaadhicisid oo dhiirigelinta marka uu walaalkaa kuu soo bandhigo oo wakhtiga uu ku bixiyo sida uu kugu soo bandhigay si lamid ah aad ugu dhaqaaqdid oo ficilka adiga aad habeynaysid ama aad rabtid ama baahida adiga ay ku hayso ka fara badnaato baahi la'aanta ogow ilaa aad sidaas noqotid ogow waxba kuma suurtagalayaan ama waxba kuma hirgalayaan haddii maantayto aan ku dhaho anigu waan ku qabanayaa waxaana ku cadaadinayaa in afka ma gaadhid bilaa calig ma suurtagalayso sababto ah qof dhan baa tahay oo isagu nafsadiisa go-aan ka gaari karto marka gaari kara shaki maanta wuxuu isku jirin dadka dunidan ugu faqrisanaa ama dunidan ugu awoodayaa dadka mid ah in ay maantay marka go'aamada fagaaraha laga goynayo ay iyagu qayb ka ahaadaan ma ahane aan wax go'aanaha suurtagelin maxay ku keeneen way fakareen marbay ka dhawaajiyeen ficilkooda ayay ka shaqaysiiyeen maskaxdooda ayay ka dhawaajiyeen intaa marka ismayeen ayaa waxaa u suurta gashay halka ayagu ay dadka raadsan lahaayeen ayaga in la soo raadsado halka ayagu dadka ay raadsan lahaayeen in ayaga la soo raadsado
sidaas la mid ah ayaa nafsadaada ahaaneed uga dhaadhici kadhaa waxani in ay adiga ku taalo isa u oolin qofkan ku dhiirigelinaya waxaan aragnay maantay in aan fiideo daarayno kadibna aan dhegaysanayno madaxa aan ruuxayno aan dhahayno wax habboon oo wax waaqiciga jira maanta ka hadlaya haddana halkii laga rabay in aan samayno wixii halkii laga rabay in aan ku dhaqaaqno wixii aanan ku dhaqaaqaynin ee barta aan uga tegayno maxaa ka dhafay maxaa nagu sababay waxaa sababay waxaani baahi noonayso sideedana waxaani ilaa ay baahidu ay ka farbadnaato baahi la'aanta hadda maanta aniga aan meesha aan seexanahayo aan haysto cuntadaan cunahaya aan haysto telefoonkayga aan berberkiisa haysto aan wixii telefoon dabri iga kharaabo aan haysto noloshayda mustaqbalka wax kasto aan ka uga baahnay aan haysto dee wax kasto aan u baahnay maanta aan haysto uga waxba kuma hirgeliyaan anaa waxba isku badayi mahayba waxba kuma halkeenayaan waxba macnaha adiga ka soo qaadi maysa ninka hadalkiisa laakiin haddii baahidu ay ka fara badan tahay baahi la'aanta oo baahidii baahi la'aanta markii laisgarab dhigo ay baahidu fara badan tahay oo waxaan inta baahi aad u qabtid ay ka fara badan tahay baahi la'aanta markaas waxay gogolaxaar u noqonaysaa in qofkani dhiirigelinta uu kuu soo jeedinayo aad dhabaha ka qaadatid qofkani dhiirigelinta kuu soo jeedinayo inaad ku dhaqaaqdid qofkani dhiirigelinta uu kuu samaynayo in aadan marnaba ka lexleexanin qofkani horumarka uu kuu muujinayo oo ku leeyahay sidani waa sida ugu habboon ee goolku gaari kadhid ee aad dhahaysid sidani waa sax mana aha wax khaldan ee hebelow ku dhaqaaq maantayto ha ka istaagin ha ka warwareegin hana ka labacashoonin sidaas ayaan ku gaari karnaa gool laakiin haddii aan dhaho maanta waxbaan dhegaysanaya kadibna kuma dhaqmaayo qofka dhiirigelinta uu kuu soo jeeday dhegna waa ka dhegaysanaya dhegna waa ka saarayaa xaafadda markaan tagayana ciyaalkii iyo dadka baan la qowqowqaya la qeyrqaylinayaa waxba kuma suurtagelayaan haddaan ku soo gabagabayo intani war guusha ama gacantaada ayay ku jidhaa guusha adiga ayaa guul isgaarsiin karaa adiga aabbaha iyo hooyadaa markii ay maanta guriga aad ku jirid ay maanta dhisayeen way fakareen sidani baa habboon sidan ayaa habboon haddaba fakar adigana oo isku day in ay waxaan ayagu ay sameeyeen ayadana ay ka horeeyeen waqti aad u fara badan teknolojiyadda hadda la joogo aan la joogin waxyaalaha badan oo hadda adiga ku suurtagelin waqti aysan ayaga u suurtagelinin ayaga oo jooga haddii ay waxaan sameeyeen adiguna waa samayn karnaa wallaahi baan ku dhaartay anigu maanta ma aaminsanin qof intuu ii yimaado sheekada igto inuu wax ugu diraayo ku dhahayo waxaa sameen kadibna waxay ii hirgelayaan wallaahi baana aaminsanin mana suurtagelayso mana dhacayso laakiin adiga nafsadaada ka dhaadhici waxaana adiga inaad samayn kartid intaas ayaana ku soo gabagabaynayaa bilahi tawfiiq